beri baa dawaco walaasheed la aroosayay. Markaas waxay rabtay in ay ka qayb gasho arooska walaasheed kana mashxarado ama allalaas kana cayaarto. hase ahaatee waxaa la yidhi dawacadu ma lahayn carab ay ku mashxarado oo carabba laguma abuurin. markaa waxay kolba u tagtaa xayawaanka kale oo weydiisataa carab ay ka amaahato ama daynsato. sidii ay u wareegaysay ayaa markii dambe waxay u tagtay yaxaas jiifa webiga qarkiisa ama jiinkiisa webiga. markaas ayay waxay ku tiri, yaxaasow waxaan kaa codsanayaa in aad i ammaahayso carabkaaga, waayo walaashay ayaa la aroosayaa. markaa in aan ka mashxarado arooska walaashay ayaan rabaa. marka aroos ku dhammaadana waxaan kuugu soo celinayaa degdeg. sidaas ayuu yaxaaskii ku ammaaneeyey carabkiisii isaga oo ku adkaynaya inay u soo celiso. dawacadii waxay tagtay arooskii walaasheed oo ay habeenkii oo dhan ka mashxaradaysay. markii arooskii dhammaaday dawacadii uma celin yaxaaskii carabkiisii. yaxaaskiina wuxuu sugayay in ay dawacadu soo celiso carabka. xayawaankii kale ayaa waxay dawacadii ku yidhaahdeen, naa dawaco maad carabka u celisid yaxaaska. dawacadiisa waxay ku jawaabtay, muddo badan ayaan cunto ii dhadhamin, sidaa daraaddeed celin maayo carabka. waxaa la yidhi yaxaasku sidaas ayuu ilaa iyo